dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile ayaa waxay gaarsiiyeen lacag dhan $3,000 maama Maryam Maxamed Cali oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaysay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal waxaana munaasabada lacagta lagu wareejinayay ka soo qayb galay maamulka degmada culimo iyo qaar kamid ah dhalinyarada guusha soo raac oo horeetii waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile Xaafi Cabdirasaaq Axmed iyo qaar kamid ah dhalinyarada guusha soo raac waxaan rabnaa maanta gudoomiye ku-xigeenka iyo culimada iyo dhalinyarada isqaamayaasha inay ku wareejiyaan maama Maryam Maxamed Cali lacag dhan $3,000 lacagta waxaa bixiyay shacabweynaha reer Buurtile dhamaantood runtii idaacadaha iyo masaajidada iyo meel kasta waa kacnay imaamada waxa la dalkudiisa waxba loogama qaban karo waxay marka maanta aan ku wareejinayna arna goobjo ka noqotaan dhalinyarada isqaamayaasha ku soo raac lacag dhan $3,000 inay ku wareejinayaan maama Maryam Maxamed Cali xaawa ashir oo laftigooda iyaduna xanuunsaneed dhalinyaradu waxay ku wareejisay lacag $1,000 waxaa kala qayb galay Sheekh Cabdullaahi iyadoo waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyada caafimaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ka soo siiyo iyada caafimaad qabta ilaahay nagu soo cesho waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa bulshooyinka reer Buurtile oo aad uga qaadatay gurmadkan hadda wadno oo maamo Maryam oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay lacag loogu aroorinayay iyagoo qayb lixaad la ka qaatay waxaan baaq u dirayaa gurba joogta reer Buurtile meel kasta ay joogaan maamo Maryam lacagtaas 3,000 kuma filna laakiin waa bilow fiican degmada Buurtile laga arooriyay sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Siciid oo kamid ah culimada degmada ayaa u duceeyay dhammaan cid walba wax la baxday kana qayb qaadatay caawinta maama Maryam Maxamed Cali maamadan xilligii hore aan u imaanaynay iyo hadda muddo runtii kooban bay ahayd xilliga macnaha loo howlgalay suurtagalnimadaasna ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga alla subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan dhammaan dhalinyarada ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo wax ka geysatay waxaan mahadcelinayaa mid labaad dadkii la baxay bulshadii la baxday sadaqada oo maamadaas wax ku sadaqaysatay noocay doonaan ha ahaadeen waxaan ilaahay uga rajaynayaa oo ilaahay uga baryayaa kuwa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yidhi hooskooda ayay harsan doonaan qiyaamada markaan hoos jirin waxaa weeye gabadhan waa Maryam Maxamed Cali Hayaan anigana waxaan ahay Xaliimo Maxamed Cali Hayaan walaashay weeye waxay xanuunsantahay muddo 2 sano ah ilaa iyo intaas dalka gudihiisa lagu la wareegay wixii bishan ka horeeyay ilaa la yiri dalka waxba loogama qaban karo xamar iyo Hargeysa iyo Boosaaso inta waa la isu mariyay markii la yiri xamar dalka waxba loogama qaban karo annaga duruuftu waa noo saamax weeyday inaan xamar ka sii qaadno aan meel ka fog sii qaadno ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurtile ee gobolka Nugaal Nuurdiin Cabdiqaadir ayaa ka codsaday bulshada inay gacmaha isqabsadaan iskana caawiyaan dhibaato walba oo la soo daristo hawshan meeshan iskugu nimid runtii hadda waad u jeedaan miraha ay maatay waxay gaaraysaa lacag 3,000 in loo keeno waxay ka bilaabatay 2 iyo 3 qof oo isku sheegtay isku wacyigelisay dhalinyarada guusha soo raacay culimada iyo iskaashatay reer Buurtile waxay soo aruuriyeen lacag 3,000 waxayna tusaysaa haddii aan iskaashano haddii aan fikirkeena mideyno haddii aan caqligeena iyo taladeena iyo xooggeena mideyno natiijadeedu inay saa ahaanayso waxaan ka codsanayaa in halkaa laga sii wado qof kasta oo reer Buurtile ah oo xanuunsan oo duruufaysan in loo gurmado in la isku gurmado iskaashigu wax fiican weeye halka aan ma sacbiso waxaan leeyahay halka aan ka sii wadno Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile.